halkaa waxaa la odhan karaa luqaddu adeegsigeedii wuu kordhay oo meelo aan lagu adeegsan jirin baa lagu adeegsaday wuuna kobcay wuuna tayoobay tusaale aynu usoo qaadano markasay u sahlanaato yani tayayntaas iyo adeegsigu siduu u kobcay meesha ugu weyn ee u baahan in hoosta laga xariiqo waxa weeyaan waxbarashadii hawsha ugu culusna ayadaana qabatay waxaa ku jirta iyadu marka muddo kooban oo degdeg waayo fasal la fadhiisan doono intaasoo bilood dabadeed buuggiisii baa laga rabaa ereyadan inay adeegsadaan waa lagu inay erey bixin la yimaadaan way ku qasban yihiin hawshaas dhowr sannadood baa laga shaqaynayay xafiiskii manaahijta ugu maqaalaa adaa kuwa hadalka dejintii koowaad ee macnaha waxbarashada aasaasiga dugsiyada hoose in aqoon-yahanka la soo aruuriyay meel la isugu keen mana bixi kartaan ilaa aad u keentaan ubadka Soomaaliyeed wax buug ay wax ku bartaan afkooda ugu qoran in la yiri ma sheeka barlay inay tahay iyo hadu sheekadu way badnayd waxa ku jirta markii waxbarashada markii erey bixinta la sameeyay xafiiska manaahijta hawsha ugu badan qabtay markii dambana xafiiska horumarinta manaahijta loo bixiyay waxaa jirtay wuxuu ururiyay erey bixinadii nooca ahaa ee buugta ku jiray 1987 waxa la daabacay ilaa 5 qaamuus oo lagu magacaabay qaamuusyada erey bixinta xisaabta qaamuusyada erey bixinta physics-ka qaamuusyada erey bixinta biology yani ilaa bay ahaayeen يعني إنكستو إريجو قاموس هاي إنه إري كوابة أو هجلسري محلو يقان واحد كينيا مركب إريجي إري بحنتي صومالي قاهد إري بحنتي إنجليز قاهد سيء سهل ناتو معلمين تا يا كان المكتئ تصالين أسواق قادن كرنا إري بحنتي ساينس كي حسابتها حتى تصال أسواق قادنا وحن أركينا إن إري بدن لأذيك سري أو كعصب af Soomaaliga ku cusub macna ahaan ku cusub waxa kamid ah ereyga atom mareeg ayaa loo adeegsaday rakaad heerkul ofis jiidad qulqul marxiye meerto xudun mogtay waari hawl awood karaar waa ereyo mogtay hadii dhinac kale ta chemistry-ga la eego waxa kamid ah unug curiye molecule danab isku dhis iyo waxyaabo la mid ah hadra erayadan waa erayo jiray oo dib loo waynu eegaynaa waxa la mid ah xisaabta marka la galo waxaan arkaynaa kisi dhaban togane marka erey bixintaasi waxa ku jira ereyada la adeegsaday markaad u fiirsato qaar waxaad arkaysaa inay yihiin af Soomaali صافي waxaad arkaysaa horta inay qaar yihiin erey sida kuwan aan taxnay imka mareeg waanu iman doonaa qaarkood waa hal erey sida mareeg iyo atom iyo waa hal erey waxa kale oo arkaynaa ereyada qaarkood waa laba sida cufis jiidad iyo ama saddex cufis jiidad waa saddex waa cufis iyo jiidad baa la isku daray Soomaa heerkul heer iyo kul isku dhis way isku lamaan yihiin moogtahay laba jibaarane dhexroor habdhis iyo wax la mid ah mararka qaar waxa laga yaabaa inay saddex noqdaan sida heer kul beek heer iyo kul iyo beek waa temperature meesha ka ahaa kii lagu cabiray thermometerkii weeyaan marka qaas ereyada qaarkoodna saas ayaa macnaha waxa kale halka ku jirta ereyadaas aad u tilmaantay marka qaarkood waxa laga soo qaatay af Soomaali oo asal ah waliba markii la soo qaadanayay waxa lagu soo xushay inay yihiin ereyo aan xilliga aad loo adeegsan markii la qoray marka la xolanayo waana iska xeer caam ah ereyo waxa jira mugta luqaddu ay adeegsan jirtay waa la iska cusboonaysiistaa adduunyadu way taqaanaa ereygaasi suuna u dhimanin oo meesha u galo mid kale marka ereyadaasi waa ereyo markii ugu yaraan nolosha magaalada marka la joogo asal ahaan aan lagu adeegsan jirin ama adeegsigeedu aad u yaraa miyiga ku badnaayeen ama meesha way ka sii baxayeen oo way sii yaraanayeen marka waxaad ku arkaysaa marka ereyadii mararka qaarkood waxay ka turjumayaan dhaqankii oo la isku soo xidhay tusaale waxaan arkaynaa xisaabta erey bixinada loo adeegsaday waxaa ka mid ah fansaar waxaad dib u eegtaa marka faraski qofkan labaad ee la fansaaray markaasaa waxay la mid noqotay fansaar waxaa la yidhi xisaabtii waxaan englishka lagu dhaha function waa qayb xisaab ah oo calculuska meel fog bay ku jirtaa waana qofka yaqaana faraska horo ka fahmay iyo xisaabtan
waxaa ku jirta waayo waa shay ku xidhan ninkan faraska xagga dambe saaran ka horun buu ku xidhan yahay functionka calculuskana waa laba factor saas oo kaleeto moogtahay waxaa ka mid ah faraskii shakaal markii la joogo saddexagalkii xisaabta marka la joogo oo trigonometry xagal shan quman leynka ka soo horjeeda ayaa shakaal la yidhi oo leenkan oo ka ugu dheer saddexda dhinac ugu dheer ayaa shakaal dhinacii shakaal waad arkaysaa mogta waa xisaab trigonometry dhinac kale waxaad ku arkaysaa xisaabtii aljabrada waxaa la yidhi saabli oo marka garaaf laga dhigay saab u egta marka saabkii iyo conceptigan xisaabta ahee waa isku xidhman iswaafajintooda waxyaaba saas oo kaleeta waxaad ku arkaysaa waxyaabaha qaarkood in qaababkii xisaabta adeegsanayeen magacyo laga sida laydi qardhaas koor qaarkood waa marka qardhaas iyo koor waa ereyo la adeegsanayay qaarkoodna ereyo loo sameeyey sida laba jibaarana oo kale dhufsano yaraha ay wadaagaan isir weynaha ay wadaagaan isir LCM-kii ayaa waxa la dhufsana oo yaraha wadaagaan moogtahay marka waa waxyaabihii noocaas kaleeta waxaa la mid ah mararka qaarkood arkaysaa aqal Soomaaliga in laga soo qaadanayo juqraafiga waxaa la yidhi dhig iyo lool inta aad ugu habboon markaasaa dhigtii 0 degree ahayd meridiankana waxaa la yidhi dhigdhaxo dhigdhaxo waa markan waqooyi koonfur moogtahay loolkuna waa kansan u gudban bari galbeed ah markaasaa dhulbadhihii isna waa lool moogtahay dhulbadaa layidhi laba ereyoo laysku kabay ayaa loo bixiyey mararka qaarkood waxaad arkaysaa waxyaabo la xidhiidha xoolihii markii biyaha cabayeen rakaad iyo durduur iyo in loo bixiyey mararka qaarkood biyihii caadiga hir inta biyihii laga soo qaaday wax cod iyo physics la xidhiidha maayad iyo loo bixiyey iyo saas oo kale marka ereyada noocaas ah marka waa af Soomaaliga la noolay waxaa kaloo jiray carabi in laga qaato oo waxa loo arkay markii af Soomaali laga waayay carabi hal aadaa leeyahay طبعا markii erey bixinta la joogay carabigu kuma badanin waxyaabaha caamka ee kale guud ee carabigu ku batay laakiin waxbarashada kuma badan inkastoo go'aanku ahaa saas laakiin waxa daboolay waxa ku jirta Soomaaliga iyo kuwii kale Laatiinka ama Ingiriiska soo jeeda marka dadka qaarkood ku arkaysa sida murakab complex oo kale iyo khariidad map oo kale iyo ama erey markii hore iska Soomaaliyoobay sida hawo iyo xadiid iyo in loo adeegsaday erey qaybta kale waxaad arkaysaa in laga soo qaatay Laatiin laatiinku marka ingiriiska talyaaniga laatiin bay adeegsanay moogtay ereyadii laatiinka sidooda loo soo qaatay waxaan arkaynaa magacyadii science biology chemistry physics waxaan arkaynaa waa moogtay atom electron muxuu ahay proton waxyaabo lamid sidooda molecule sidooda loo qaatay degree graph iyo waxyaabo lamid atmosphere transistor marka ereyadaasna sidoodii ayaa loo soo qaatay waxaa kaloo xusid mudan halkaa marka la joogo markan ereyada la adeegsanayo waxa jira ereyo waa ereyo buuxa ereyo waxa jira aan buuxin oo la yiraahdo horkabe iyo dibkabe waa waxaan Englishka la yiraahdo prefix iyo suffix waxa ku jirta ereyada Soomaaligu mararka qaarkood in waxa xataa loo sameeyay ereyada prefixka yani horkabe waxa kamid ah mesela waxaan arkaynay xisaabtii marka chemistry-ga la joogo waxa la yiraahdo carbon monoxide markaas waxa yidhi carbon hal oxide ereygii mono hal baa laga dhigay marka ereyga hal waxaa loo isticmaalay inuu horkabe yahay ama waxa loo yaqaano prefix u yahay markaas waxay noqotay carbon monoxide carbon dioxide carbon laba oxide dhaygii baa laba leeyahay saddexagalkii triangle tri soo ma ahayn markaas waxa la yidhi saddexagal tetra oo afar ahayd afar baa loo adeegsaday markaas waxaad ku arkaysaa iyadoo la leeyahay carbon tetrachloride soo ma ahayn carbon afar chloride moogtahay waxaa la mid ah cilmiyad oo cajiib ah taas waa erey xagga hore gelaya erey xagga dambe gelayna waa loo adeegsaday oo waxaan arkaynaa iyadoo la leeyahay muxuu ahaa ereyga heerkul temperature baa layidhi markii thermometerkii la joogay ereygii mitr booskiisii waxbaa la beegtaa moogtahay markaasaa la yidhi heerkul beeg markaas meel walba beeg la soo gelin karaa iyadoo ah hadba dibkaba ah waxyaabahaas marka waxay sahleen ereyada inuu isdaboolo ereyadii sayniska muxuu ahaa waxa kale oo tilmaanay markii farta si rasmi ah loo qoray waxyaabaha ay soo kordhisay waxaa ka mid ah sheekada casriga ah inay sheeko casriya la qoro waxa novelada loo yaqaan ama qisooyinka loo yaqaan ama sheeko gaaban iyo sheeko dheer ha ku soo baxaan marka hore wargeyskii xidigta October ay jiray
ama markii dambe buug ahaan dad badani ha u qoraan marka arrintaasi waa arrin nagu cusub noloshana way ku cusbayd waxay keenaysaa marka fikrado cusub bay keenaysaa waxay keenaysaa ereyo cusub waxay kaloo keenaysaa ereyadii af soomaaliga in la tarmiyo ayay keenaysaa runtii mar saddexaad iyo mar afraad waxaan kaaga mahadcelinayaa professore ama barasar aan dhaho in aad waqtigaa qaaligoon ogahay macnaha mashquulka aad tahay shaqooyinka kugu yaalla in aad uga faa'iidayso daawatada iyo dhagaystayaasha goobjoog runtii barnaamijkaanu loo baahan yahay da'yarteena haatan kacday in dee wax badan lagu baraarujiyo dadaalkii loo soo golay af soomaaliga iyo dhibihii laga soo maray iyo heerkii in 200 sano ka hor ay soo jirtay walow aan ognahay maantana xaaladdu halka ay marayso iyadoo inkastoo aan u tegi doono su-aasha aan faraadan rabo inaan kuweydiyo waxay tahay professore ama barasare sida muuqata cilmi baarista ku aadan af soomaaliga waxay noqotay hawl si joogtaha u kordhisay waxaa la tilmaamaa in soomaaliya xilligan yeelatay xarumo iyo hay-ado ka shaqeeya cilmi baarista af soomaaliga bal wax nooga taaba xarumihii iyo hay-adihii ka shaqaynayay kana qayb qaatay hawsha cilmi baarista af soomaaliga horta waa arrin weyn oo muhiim ah markii laga sheekaynayo sooyaalka cilmi baadhista af soomaaliga iyo sooyaalka cilmi baadhista arrimaha soomaalida waxaan loo yaqaan daraasaadka soomaalida ama Somali studies inkastoo inagu aynu af soomaaligu la socono toddobaatanaadkii arrimo waaweyn oo ku soo kordhay oo wax ku ool ahaa ayaa jira waxa ay ahaayeen hay-ado arrimahan ka shaqeeya ayaa abuurmay toddobaatanaadkii ka hor hay-ad u gaar ah ma ahayn waxaa laga yaabaa waax yar oo meel ka tirsan ama qof khabiir ah oo cilmi baadho ah isagu sidiisa inuu u wado waxyaabihii abuurmay waxaa ka mid ahaa inuu ka soo qaadan karnaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed dabcan inay ubadka soomaaliyeed wax lagu baro ayay ujeedadeeda ugu weyn laakiin cilmi baadhis ayay samaynaysay dhanka iminka aynu uga jeednaa waa xagga ilaan jaamacaddu dhinacna waxbay bartaa dhinacna cilmi baadhis marka la dhinac bay ahayd ardaydu markay qalin jebinayaan buugga qalin jebinta cilmi baadhis bay samaynayaan waa laga maarmaan marka cilmi baadhis badanoo ayay xoojinayaan af soomaaligu marka wuxuu ka mid noqday waxyaabihii la baadhayay waxyaabihii la baadhay arday waxaa laga yaabaa tusaale ahaan inuuna af soomaaliga takhasus ahaan u baran laakiin wuxuu baranayay af carabi ama wuxuu baranayay af ingiriisi wuxuu noqonayaa marka linguistics buuggiisa qalin jebinta af soomaali wuxuu ka hadlayaa wax afkii ku saabsan tusaale ahaan oo cilmigii u bartay wuxuu ku adeegsanayaa afkii waa tusaale moogtahay waxaa kaloo la mid ah in meelaha qaarkood waaxo markii dambe afka lagu barto inkastoo ina hana qaadinay markiiba joogsatay oo markii waxa lagu soo daray la foole mar qayb af soomaaliga lagu barto oo ardaygu markuu jaamacadda u dhiganayo ingiriis iyo soomaali dabcan ma soconin oo markii dambe dib bay u baaba'day markiiba dhowr sanuun bay socotay ma soconin muddo dheer marka laakiin cilmi baadhistii af soomaaligu ma joogsanin marka halkaa qayb weyn ayay ku dartay waxaa kaloo jirtay waax yar oo markii hore wasaaradda waxbarashada ka tirsanayd markii dambena kulliyadda akademiyada dhaqanka la yidhi markii dambena wayba sii xoogisto akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta la yidhi marka akademiyadaasina iyaduna soo kororkeedu halkii markii hore qayb yaroo wasaaradda waxbarashadun ka eegaysa ay ahayd markana waxay noqotay qayb dhan oo hay-ad dhan oo jirta oo cilmi baadhista ay tahay marka iyaduna qayb weyn hawshaasi yani samaysankeeda ah arrin wax ku ool ah mogta ilaa hawshu iska sii socon doontaa waxaa kaloo jira iyaduna waxaa samaysan urur caalami oo la yidhahdo ururka caalamiga cilmi baadhista soomaaliyeed 1978 ayuu aasaasmay kaas marka hay-ad dowladeed ma aha aqoon-yahano arrimaha soomaalida baadha soomaali iyo dadan soomaali ahaynba isugu jira ayaa markii 1978 la joogo waxaa jiray waxaa la yidhaha Ethiopian Studies daraasaadka Ethiopiaanka marka soomaalida dadka baadhana halkaasun bay aqoon-yahano marka cilmi baadhistooda kusoo bandhigaan markaasaa way shireen 78 aqoon-yahano marka Soomaali iyo dadan Soomaaliyan bay isugu jiraan laakiin waxa ka dhaxeeya waxay baadhaan arrimaha Soomaalida
soomaalida ayay baadhaan soomaaliyuun ma aha aduun ma aha arrimaha soomaalida arrimahooda ay baadhaan oo afku ka mid yahay dabcan marka samaysankii wuxuu keenay marka shirar caalami oo 3 sanaba mar la qabto oo kii ugu horreeyay 1980kii muqdisho lagu qabtay kii ugu dambeeyay ee 13aadna hargeysa waxaa lagu qabtay sanadkii hore 2018kii 3 sanaba mar ayaa la qabtaa dabcan oo markii 3 jeer 10kii sanaba mar baa lagu qabtaa geeska Afrika la keenaa ama muqdisho ama hargeysa ama Djibouti baa lagu kala qabtay xilliyada kala duwan markii la isku imanayo marka waxay noqotay madal aqoon-yahanadu ay ku soo bandhigaan marka af Soomaaliga wuxuu ka mid noqday cilmi baadhisaha ku jira ee mar kasta oo la isku imanayo shirweyne kasta oo la isugu imanayo arrimaha la soo bandhigo marka qofkii wax baadhayay waxyaabaha uu soo helay wixii ku soo kordhay buu soo bandhigayaa iyaduna arrin kale oo soo kordhay ayay noqotay arrimahaas marka waxay iyaguna sii xoojiyeen cilmi baadhistii af Soomaaliga waa madal la isugu imanayo adigu waxaad baadhisaad sheegtay anna waxaan baadhayaan soo bandhigay waxba isku imanaya arrin adigu meeshaad gaadhiban anugu ka sii wadaya halkii markii hore aan bilaabi lahaa marka madal la iskula socdo aad bay u fiicnayd iyaduna marka hay-adahaas 70aadkii wax ku ool bay noqdeen dabcan xilligaas way soo kordheen hawsha ballaaran ee sida la filan karo macnaha waxaa jira culaysyo ay la kulmeen ama la kulmaysay maxaa laga tilmaami karaa culeysyada waa run horta hawshaas waa hawl dheer moogtahay 200 sano cilmi baadhis socotay culaysyo kala duwan bay la kulmayeen culaysyada kala duwan ay la kulmayaan xilliyada kala duwan xilliba culeysyadiisa gaarka ah ayuu watay xilligii hore bilowga aynu soo sheegnay 200 sano ka hor markii saamiyaashu bilaabayeen waxa weeyaan xilliga culayska jiray meel eberu qofkii bilaabayay ka bilaabay ereyo hadduu ururinayo iminku ereyada oran erey af Soomaali ah buu meel ku qoraya marka waa bilow waxa kale oo ku jirta isagu uma tababarna ujeedo kale oo sahamin isticmaarna wuu u socdaa laakiin hawl yar qayb yar wax yar bay u tahay isaga marka waa hawl bilow ah si sahlo marka uu ildoofi karaa si sahla ayuu ildoofi karaa midalan aqoon-yahanadii xilliyada jiray mid ka mid ah markuu baadhayay af Soomaaliga wuxuu bixiyay af jabarti waa wax imika mugta markaynu maqalno aynu ku qoslayno aqoon-yahanada Jarmalka ee af Soomaaliga baadha waxaa lagu qiyaasaa ilaa muddo 40 sano inay erebixinta af jabarti isticmaali jireen يعني waa wax moogtahay imika markaynu sheegno aan ku qoslayno laakiin si sahal oo ildoofay si sahal oo ildoofay bas خلاص saas isaga dhacday arinta ugu weyn marka waxay iyagu arinta mudnaanta ay qabteen waxa weyn in arintani in la baaro ay tahayba in mudan tahayba iyagu baraarujiyeen xilligii dambe dhexe markaynu eegno aqoon-yahanada ku soo biiray cilmi afeedka bartay oo aqoon u leh cilmi afeedkii tababaran hay'ado cilmi oo jaamacada ana dhabarka ku haya jaamacadu marka way aragnimay leedahay qofkani marka waxyaabaha qaar kood ma lumayo ma lumi karo way hagaysaa waxayna siinaysaa waxyaabo uu ku kaalmaysto oo ay kamid tahay talooyin markuu arintii soo sameeyo oo la fagurayo wuxuu la kaashanaya aqoon-yahanada kale oo la tashanaya marka halka arintaasna waxa taasa ku soo biirtay waxa kale oo mudnaan leh marka xilliga la joogo rubicii labaad ee qarniga 20aad markii la soo galay waxa ku soo biiray aqoon-yahano Soomaaliyeed intii hore ajnabi ahayd yani intaynu qoraalladaynu aragnay markaynu eegno waxaan arkaynaa rubacaas adigu markii uu rubaca labaad la joogo waxa soo 20aadkii waxa soo galaya aqoon-yahano Soomaaliyeed oo marka waa dad afkii iyo dhulkii wixii u dhashay iyaguna waxa weeyaan marka ceebta dhaliisha yeelan doona waxa kamid ah tababar ku filan ma tababarna horta luqadu ma tababar niyad bay hayaan laakiin niyad waxa kale oo ku jirta hay'ado ay ku tiirsan yihiin ma haystaan kuwan Soomaalidu waa iskood u socdaan iskood u socdaan oo marka tusaale ahaan inkastoo ina ahayn waxa tusaale u soo qaadan kartaa qolooyinkii farta qorayay far Soomaalida qolooyinkii raadinay waa dadaal iskood ay u wadeen bay waxyaabaha kale saas oo kale qoraalada dad Soomaaliyeed ay qoraan ugu horeeya aynu hayno waxa kamid ah hadduu ahaynba ka ugu horeeya nin la oran jiray Maxamed Cabdi Makaahil qoraal uu sameeyay 1932 la daabacay 32 la daabacay qiyaastii waa intaan arkay waa un aqoonyahan Soomaaliyeed qofkii ugu horeeyay qoraalkiisa طبعا kuwa wax baaray oo aqoonyahano kale reer Yurub wax la qabtay way jiraan laakiin
isagu intuu wax sameeyey qoray 1932 baa cadan lagu daabacay maxamed cabdi makaahil far ayuu ahayd marka in far makaahil baa berigaa loo baxshay dabcan waxaa ka mid ahaa muuse galaal oo 1954 qoraal qaybka ahaa la daabacay waxaa ka mid ahaa yaasiin cusmaan keenadi waxaa la odhan karaa aqoon-yahanadii Soomaaliyeed ee wax daabacay kuwa dadaal la sameeyay way jiraan oo qolooyinkii farta baadi goobayay dadaalay sameeyeen qolooyin dadaallo sameeyay way jiraan haddaynu afka ka hadlayno waxaa qayb ka soo gelaya aw jaamac Umar Ciise dabcan taariikhda daraawiishta ka sokow suugaantii gabayadii sayidku oo dhinac suugaantii mugta waa qayb afkii mugta dhankii suugaanta mar dambe ha daabaco oo beri dambe ha la daabaco laakiin hawsha inta badan kontonaadkii iyaba ahayd berigu qabtay ayuu qabtay mugta ururintoodii marka aqoon-yahanada Soomaaliyeed baa soo galay sidaan sheegay yayna helin iyagu tababar ku filanna ma helin hay'ad cilmiyeed oo ay dhabarka ku hayaanna ma helin waxa ku jirto kaleeto marka xilligii 72 markii la qoray xilligaas isaguna wuxuu ahaa culaysyo way jireen laakiin xilligaas horta isagu wuxuu ahaa dhanka culaysyo markaan laga eegin horta dawlad baa waday go'aanana way ku kaabtay waqti iyo maalna way u hurtay oo waqtigii maalkii u horeysay waxaan arkaynaa tusaale ahaan miisaaniyadda waxbarashada cilmi baarista loogu talagalay 1972 miisaaniyaddii dalka cilmi baarista iyo waxbarashadu waxay ka ahayd 6.6 boqolkiiba moogtahay laakiin 1977 markii la soo gaaray 12.3 bay noqotay laban laab bay ku dhawaatay waxay ku jirtaa mugtay waa danaynta ay dawladdu marka waxbarashadii waa kordhaysay cilmi baaristii waa markii af Soomaaliga la qoray dhinac baa jira marka hawl badan weeyaan oo muddo kooban la qabanayo mararka qaar kood ilduuf baa dhacaya tusaalahan waxa dhacay waxaan arkaa imika waxaan ku aragnaa wasaaradda waxbarashada qofka uga wakiilka ah gobol waxa la yiraahdaa gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Hiiraan tusaale ahaan gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Hebel saas ma laakiin wasaaradda xanaanada xoolaha qofka wakiilka uga waxa la yiraahdaa isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha markan laba waxay waa isku hawl waa laba qof laba ere bixin la iskama warhayn marka hawl hal ahayd ayaa laba meelood oo kala duwan laga qabto waxa keenaysa degdeg loo qabanay moogtay imika dhanka culayska inuu ka daba socnaa dawladdu waxay ahayd dawlad kacaana hanti wadaaga xafiiltan wuxuu kala dhaxeeyay reer galbeedka waxa halkaa keenaysay aqoon-yahanada cilmi baarista ku sameynaya af Soomaaliguna reer galbeed bay u badnaayeen jaamacado galbeed oo Yurub ku yaala ayay ahaayeen marka halka dawladdu aqoon-yahanadan way ka shakisan tahay iyaguna markay yimaadaan xorriyadii u baahnayeen ma helin oo wadamadii shuuciyadda waxa lagu yaqaanay cilmi baarista natiijada ka soo baxaysa way danaynayaan marka natiijaday doonayaan haddii natiijo ayna rabin ay noqoto ma ogola inay soo baxdo marka horeba in la gaadho arrintaas marka halkaa fursad waxaa ku jirtay markii af Soomaaliga la qoray afafka kushitiga in cilmi baaris xoog leh lagu sameeyo aqoon-yahanadii baari lahaa meesha ugu fiican ay adeegsan lahaayeen waxay ahayd Soomaaliya waxa kale ahayd Ethiopia labadaba waxa ka dhashay laba dawladood oo shuuciya waqti dadka ugu badnaana halkaas ay degan yihiin Soomaalidiina waa Soomaaliya joogan Ethiopiana Oromadii iyo Canfartii iyo Soomaalidii iyo qowmiyado kale afaf kale kushitiga halka marka horta fursad weyn ayaa ku luntay xilliga culaysyadii qabsaday bay kamid ahayd culaysyadii kale qabsaday waxay ahayd markii dagaalkii 77 wuxuu saameeyay dawladnimadii Soomaalida iyo noloshii Soomaalida wixii intaa ka dambeeyay waxa abuurmay culays dhaqaale dawladii culays dhaqaalaha fuulay taas waxay keentay miisaaniyaddii isdhin inuu ku yimaado waxay keentay marka adeegyadii miisaaniyaddii la siinayay qoontadoodii inay isdhimaan waxbarashadii iyo cilmi baaristu meelihii isdhima bay ka mid ahayd waxa kaloo ku jirta iyaduna waxa abuurantay xaalad siyaasadeed iyo amni oo mucaarad iyo dawlad iyo waxba abuurmay duruuftii dhaqaale marka waxay keentay aqoon-yahano mushaarkii oo ku filaan waay noloshooda darteed inay dalka uga tagaan waa qofkii cilmi baarista sameynayay moogtahay tir dhaxaadka waa saa darteed waxaanu ku daalmay kuliyadda la foole markii kuliyadda waxbarashada
qaybtii af Soomaaliga marka lagu daray aqoon-yahanadii laf dhabarka ka ahaa oo iska baxeen yaa dhigaya waa iska baabaaday miisaaniyaddii loo qoondeynayay waxaynu sheegnay 77 miisaaniyadda waxbarashada cilmi baaristu 12.3 soo ma ahayn 87 marka la soo gaadhay waxay noqotay 2.5 markaas waxay noqotay macallimiinta mushaaradooda ma dhaafto xataa dayactirka ma gaadhayso iska dhaaf cilmi baaris sadarteed waxa lagu tilmaamaa cilmi baaristu inay xilligan duruufihii wadanka ka jiray guud intii saameeyeen inay is dhintay 86 markii la soo gaadho 86 marka la soo gaadho adeegsigii af Soomaaliga socday laakiin cilmi baaris naflo af Soomaaliga kubcinaysay ma jirin halka marka cilmi baarista culeysyadii jiray kuwaas ahayn dabcan marka waa xilliyo qaarkood laga soo gudbay laakiin way jirayaan mar walbaba waayahay barasare anoo mar saddexaad mar afraad kaaga mahad celinaya waqtigaaga inaad uga faa'iideyso daawatada telefishinka goobjoog ee dhageystayaasha raadiyihiisaba haddaan su'aalihii hore usii wadnaa professor waxaa jirta hawsha cilmi baarista xarumaha iyo jaamacadaha ka soko waxaa jiray aqoon-yahano waqti iyo caqli badan u huray aqoon-yahanada ayaad ka xusi lahayd horta waa aqoon-yahanadaas waa 200 sano moogtahay oo waa muddo dheer laakiin waxaan ka eegi karnaa kuwoodii inta ugu badan markii laga hadlayo af Soomaaliga cilmi baarista ugu badan qoraalada ugu cilmi baarista mugtay waxyaabaha qaarkood qofku intuu qoray oo daabacay baa la faafiyay waxyaabo waxa jiray kara dadku intay sameeyeen aan la faafin marka ka inagu aad ma oginba waxaan ka sheegnaa waa laakiin cilmi baaristii inta la qoray la faafiyay nin odayo waxa jira kaalinta koowaad cid kula tartanta ilaa hadda aan حتى ما سوى دوا بريان وانين كي لورين جري بروفيسور جوش اندرويسكي سوماليدنا اي معلم جوش ايو تقانو وانين اودايو انجليزي اها علم باريس وين ايو 94 بو دنتay علم باريس وين بو اف Soomaaliga يعني qoraalada af Soomaaliga lagu sameeyay waa ninka ugu badan ilaa hadda qoraaladiisaas ama cid ha la qoro ama isagoo ha qoro ama article journal ku soo baxa ha noqdo ama arin laga hadlay fikrad uu ka jeediyay ha noqoto ama buug uu qoray ha noqoto cilmi afeedka linguistics-ka ha noqoto naxwaha af Soomaaliga ha noqoto sarfigiisa ma kuma badnayna ha noqoto suugaanta waxyaabo la xiriira ha noqoto dhinaca ururinta ha noqoto dhinaca xeerarka soo saarista ha noqoto waxa weeyaan waxaad moodaa nin u go'ayba ma isagu u go'ayba waxa isagu afafka kushitiga jaamacadda London buu ka tirsanaa afafka kushitiga ayuu ahaa gaar ahaan af Soomaaliga marka harka maxaa ka jira in waa ninkii ugu horeeyay ee Yurub galiyay af Soomaaliga qiimaha uu leeyahay baray tusay oo Yurub kaliya maaha dhanka cilmiga marka la gaadho qiimaha cilmiyeed ee af Soomaaliga adduunyada macal Soomaalida isaga ku baraarujiyay macal Soomaalida oo waxa ku jirta dadka qaarkood dadkii gacan yareyaashu isaga la shaqeynayay ama uu isagu ku dhiiri galiyay ayay ahaayeen waayo waa isagu marka wuxuu kaga duwanaa dad kale waxa aan moogtay saan tilmaanay shaqo kale hayeen markaas afku uu qayb yar uga ahaa isaga takhasuskiisa iyo shaqadiisa iyo wixiisa ayaa afka af Soomaaligu bartay uu ku shaqeyn jiray dabcan waxa kamid ah qofka labaad qaadanaya professor Anrita Biglieli waa Talyaani way joogtaa hadda iyadoo waayeelo duqa ilaa 70aadkii ay afka ka shaqeynaysa ilaa maanta way ka shaqeysaa qoraalada ugu badan markii Androwiski laga yimaado waa qofka labaad ayadaa iskale dhanka naxwaha af Soomaaliga si xoog leh uga shaqeysay qaamuus af Soomaaliga jiro iyadoo ay markii hore akademiyada la shaqeyn jireen jaamacadda ummadda laakiin waxa la faafiyay bari dhaweyd iyadii Cabdulla Mansuur ay wada tifaftirayaal u ahaayeen dabcan guddi badan baa ka shaqeeyay marka Anrita Biglieli waa qofka dadka kale waxa kamid ah af Soomaaliga baadha professor kale Mauro Tosco oo jaamacadda Torino ka tirsan waxa kamid ah Giorgio Panti oo jaamacadda Napoli ka tirsan waa dadka muddada dheer waxa kamid ah Martin Orwin oo jaamacadda London wuxuu dhaxlay kursigii Androwiski markuu gaboobay Martin Orwin kursiga gacan ka marka Martin Orwin waxaan lixdan la gaarin waa kuntameeye waa nin dhalinyaro ah dabcan Martin Orwin inkastoo dhanka suugaanta
xooga saaro suugaanta Soomaalida sida Ingiriis loogu turjumi lahaa ayuu xooga saaray shaqadiisa laakiin phonology-ga waxyaabaha uu wax ka qoray af Soomaaliga waxaan filayaa qoraalkiisii PhD-da inuu ahaaba marka waa Martin Orwin Dr. Martin Orwin baa kamid ah George Capgis ninkan odayga ah Ruushka ee markii Radio Moscow ka shaqeyn jiray markan dambana jaamacadahaas wax ka dhigay mahmaaha af Soomaaliga Georgian waa marayna isaga waa ruush ma aqaan cid kale sii kale laakiin waa halkaas mugtay adu waa dad islaha waxaa kamid ah Dr. Douglas Piper oo jaamacad Arizona Northern Arizona Mareykanka kamid aha waxaa kamid aha Lamberti baa kamid ah Roberto Ajello waa dadkii qoraalada ugu badan haba kala bataane ka sameeyay aqoon-yahano Soomaaliyeed baa jira dabcan iyaguna af Soomaaliga cilmi baadhis ku sameeyay qoraal ka sameeyay oo faafiyay aqoon-yahanadaas way badan yihiin laakiin kuwii hore waynu sheegnay oo qoraalada af Soomaaliga ka hadlay ugu qadiimsan ee la daabacayno hayno Maxamed Cabdi Makaahil oo far qoray oo fartiisii far Makaahil lagu magacaabay yani magacaas waxa la siin jiray mogtahay magaca qofka iyo waxa ay siin jiray mogtahay waa wixii baa kulligood wax u wada bixiyeen far Soomaali markaas waxay noqotay Cusmaaniya leeyahay fartiisii Cusmaankeena diid Cusmaaniya leeyahay ka darana kadariya leeyahay Cabdiraxmaan qaadigiina Boorame ama Gadabuursi Boorame Soomaalidu marka dambe yar tiriye Gadabuursi am Lewis markuu qoray uu farta u ka sheekeynay Gadabuursi script buu bixishay qabiilkiisu ugu magac daray marka magacyada waxa keenaya kulligood far Soomaali bay yiraahdeen ayagu magac kale uma bixin wax loo kala saaraa la rabaa marka nimba waxbay marka dadkaas kamid ah qoraalada Soomaalida marka af Soomaaliga laga hadlayo aqoon-yahanada Soomaaliyeed qofka qoraalada ugu badan ee laga faafiyay waa Professor Cabdulla Cumar Mansuur ka sameeyay isagu marka af Soomaaligana wuxuu ku yahay khabiir ilaa 70aadka cilmi baadhis ka sameeyay ilaa maanta wuu wadaa yani waa muddo 50 sano ku dhow mogtay waxa kale oo wuxuu ku jiraa aqoon-yahanada heer caalami afafka ku shutiga ugu yaqaanana waa ku jira marka Cabdulla Mansuur baa kamid ah waxa kale oo kamid ah Dr. Professor Xaaji Raabi Maxamed Xaaji Xuseen Raabi labadooduba jaamacadda ummadda ka tirsanayeen markii dambe Mansuur wuxuu u wareegay Talyaaniga Roma Tare Xaaji Raabi intay dowladda dhicin buu isagu ka wareegay laakiin hadda jaamacadda Hargeysa inuu ka tirsan yahay filiya Hargeysa hadda degan yahay uu jooga qoraalada naxwaha iyo waa dadkii ugu horeeyay xooga saaray maadaama uu jaamacadda macallin ka ajnabina af Soomaali uu bari jiray ardaydana Soomaalidana uu baraya heer akadeemiga oo jaamacadeed marka buugaag buu qoray qaarkood way lumeen qaarkood oo maktabadii la foolay waa qaarkood laakiin intoodii badneed isagoo helay baan ogaa qaar baa marka waxa kamid ah dadka mesela hadda inaan dhanka afkuuna inala tegina suugaanta miisaanka Soomaalida marka laga hadlayo inkastoo qoraaladu ayna badnayn laakiin ugu culus qoraalada ugu culus ninka ka sameeyay saldhigga ah waxa Professor Carraale Cabdullaahi Diiriye Guuleed Carraale طبعا miisaanka waxa Carraalena miisaanka wuu helay ninka la yiraahdo Gaariyana wuu helay laakiin Carraale qoraalada la faafiyay ayuu leeyahay ugu weyn ayuu leeyahay طبعا همك waxa jira jiil cusub oo ama Soomaaliya ama Soomaali ahayn oo cilmi baaris ku sameeya af Soomaaliga طبعا waa jiil oo si u kala dadaal badan doonaan ma garanayno moogtay dadka waxa kamid ah mesela markaan dadka kale sheeyaha aan dadkan Soomaalida ahayn aan horeysiyo Dr. Martin Orwin waa dadka dadaala waxa kamid ah Morgan Nelson oo Sweden isna jooga ayaa kamid ah Dr. Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil jaamacadda Djibouti ayuu professor ka yahay isaguna uu jooga yani waa cilmi baarisaha ugu waaweyn hadda jiilka wada muuqata in cilmi baaris xoog leh aywa dad waxa jira iyaguna computerka sidee af Soomaaliga far Soomaalida loogu adeegsan lahaa oo iyagu marka hore ama computer batay ama wax kale bartay oo halkaas ka shaqeeyana way jiraan marka ala kulli noocyadaasina dadkaasina way jiraan marka adu waa jiil iyaguna runtii wax fiican laga filan karo